dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Jarmalka. sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyaheena Bushra Bashir. safiirka Soomaaliya ee dalka Jarmalka Maxamed Maxamuud Tifow ayaa sheegay inaysan jirin muwaadiniin Soomaali ah oo si sharci darro ah ama si qasab ah looga masaafuriyay dalkaasi. safiirka oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay la mid yihiin dadka ajaanibta ah ee ku dhaqan dalka Jarmalka, isla markaana ay leeyihiin xuquuq la siman muwaadiniinta dalkaasi. safiirka Soomaaliya ee dalka Jarmalka Maxamed Maxamuud Tifow waxa uu xaqiijiyay inay ka warhayaan dil toddobaadkii hore ciidanka booliska ay u geysteen nin Soomaali ah, isagoo intaa raaciyay inay jiraan qoysas laga qaatay caruurtooda kadib markii lagu eedeeyay inay dayac ku sameeyeen la socodka iyo ka warqabka nolosha caruurtaasi. safiirka waxa uu soo jeediyay in dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka ay wax u qabsadaan sida dadyooga kale.